haddii madaxayga markaan isdaahirinayo aan madaxana si gaara u maydho jidhka inta kalena aan si gaara u maydho ma ansaxbaa mise waa qalad dadka kale waxay ahayd madaxana gaar baan u maydhaa markaan maydhanayo jidhka kalena gaar ma saxbaa maydhigu waxaa muhiima inaad ogaato horta inuu leeyahay tiirar uu ku taagan yahay oo lagama maarmaana iyo waxyaabo takmiiliyahoo sunno ah tiirarku ku taagan yahay waa laba anniyatu wa tacmiimu lbadani bilmaa inaad niyooto maydhigan waajibka ah maydhigii jinaabada aad ka maydhanaysay maydhigii aada caadada ka maydhanaysay iyo maydhiga sunnahaaba mid walba waa inaad niyootaa niyadaas waa shardi wey ama tiir shardiga labaadna waxaa biyaha inaad si wanaagsan jidhka u wada gaadhsiiso labadaasunbaa shardiga sida se fiicani waxa weeye qofku markuu istijadiisa iyo weysadiisa dhammaysto inuu madaxana maydho midigtana maydho jidhkana inta kale ku gaadhsiiyo sida ay u maydhan jireen xaasaskii nabiga sala allahu calayhi wasalam isaguna axaadiidtiisa uu nagu faray markaa weysadana horraysii madaxana ku horraysii iyo dhinaca midig sidaana ku wada gaadhsii